وحلقة سجالات امتحانها كن هبين يا هبين هدي تايمر كيكواد يا تنكن صوب وغنيسو فضلا سبسكرايب كتابو لايك تنسار كمبلال كنا دارو سيكوسو قران مقالة دي العصبي أنا أدي رجلين يقول نقطة إيمي كان داو شوان شهرزاد شهرزاد sheekadii waxa ay ka sii ambaqaaday markaas ayaan warqadii soo qaatay waxa aan ku qoray tix gabay ah oo ammaan ah warqadihii waa la ururiyay waxaana loo geeyay boqorkii kadib markuu fiiriyay warqadihii loo keenay ishiisu waxa ay qabatay warqadeedii kadibna wuxuu askartiisii ku yiri ninka warqadan qoray ha loo tago oo dharkan ha loo soo labiso faraskana ha lagu soo qaado aniga ha lay keeno askartii inta ay eegeen ayay qosleen boqorkii ayaa xanaaqay oo ku yiri ma intaan amar idin siiyay ee qoslaysan waliba markaasay yiraahdeen boqorow adiga kuma qoslinee waxaanu ku qoslaynaa warqadan qof muu qorin ee daanyeer ayaa qoray markaas ayuu boqorkii yaabay waxa uu yiri orda oo qaada dharka una taga oo daanyeerkan dharka u soo geliya faraskana lagu soo galbiyo kadibna inta dharkii la ii geliyay faraskina la igu soo galbiyay ayaa boqorkii la ii keenay markii la ii keenay ayuu boqorkii ugu yiri fadhiiso markaasaan hore ka fadhiistay iyadoo oo dadkii oo dhan ila yaaban yihiin sidaan u fahmayo amarka boqorka waxa la gaaray waqtigii qadadiina waa laga soo qayb geliyay waanan qadeeyay kadibna boqorkii ayaa waxaa loo keenay ciyaarta chesska intuu ii soo fiiriyay ayuu yiri ma ciyaari kartaa markaasaan madaxa ruxay anigoo leh haahey markaasaan isla ciyaarnay laba ciyaarood waanan ka badiyay labadii ciyaaroodba boqorkii aad ayuu u yaabay waxa uu yiri wallaahi daanyeerkan waa mid cajiib ah mana aha waxa dhici kara in daanyeer ka maskax badiyo insaan kadibna waxa uu wacay khaadinkiisii waxa uuna ku yiri igu wac sayidadaadii hebla ahayd waxayna ahayd gabadh sixirka wax badan ka taqaanay iyada oo ka baratay 7 baab oo sixirka ka mid ah baabka ugu yarna ay buuraha magaalada ku rujin karto markii la keenay ayay ku tiri boqorkii waxaan u jeedo ma ahan daanyeer ee waa wiil caalim ah oo ina boqor ah waxaana sixray ifrid la yiraahdo jarjiis boqorkii wuxuu ku yiri saaxiradii ilaahay baan kugu dhaariyay waxaan ka codsanayaa inaad ninkan sixirka ka furto markaas boqorkii ku tiri haddii aan dhaho ka fur sixirka ninkan waxaan halis gelinayaa boqortooyada oo dhan sababtoo ah wiilkan waxaa sixray ifriid uu ibliis awow u yahay si aan uga furo sixirkana waa inaan ifriidkaas awoodda badan la dagaalama oo weliba dila boqorkii waxa uu yiri wax walba ha nagu qaadatay xitaa haddaan boqortooyada ku waaynayo wiilkan daawee oo sixirka ka fur markaas ay gabadhii saaxirada ahayd soo qaadatay buug ay ku qoran tahay luqadda cibraaniga ah iyo weel biyo ku jiraan waxbay ku akhriday kadibna goobo waaweyn ayay samaysay markaas ayuu qasrigii oo dhan mugdi noqday annagoo u malaynay inuu adduunkii oo dhan dabagadoomay mise waaba ifriidkii oo ku soo baxay muuqaalkii ugu foosho xumaa isaga oo holac ka kacayo markaas ayay saaxiradii ku tiri soo dhaweyn iyo salaan midna ma lihid kolkaas ayuu intuu ifriidkii muuqaal libaax isu yeelay yiri khaa'inadii hay sidaad dhaartii uga bixi kartaa soo kumaynaan heshiinin inaanu midkeena ka kala daandaansanin kolkaas ayay ku tiri oo maadigoo in ibliis ah ayaad aniga dhaar igala hadlaysaa ifriidkii ayaa yidhi haddaba dhibkii aad u yeedhatay waa kana qabso intuu afka kala taagay ayuu gabadhii ku booday markaas ayay degdeg intay tin ka mid ah timaheeda u qabsatay ayay gilgishay kolkaas ayay tintii inta ay seef isu beddeshay ayay ifriidkii laba u kala goysay madaxii ifriidka oo go'ay ayaa isla markiiba isu beddelay dibqaloo saaxiradiina abeeso weyn ayay isu beddeshay iyadoo halkii dagaal culus uu ku dhex maray marba labadooda midkii laga adkaan raba ayaa isu yeelayay muuqaal kale ilaa uu markii dambe ifriidkii isu beddelay dhimbiil dab ah oo uu damcay inuu gubo qasriga oo dhan neef kasta oo afkiisa ka soo baxdana waxay ahayd holac taasoo galaafatay dad badan oo uu boqorkiina ka mid ahaa anigana qaybo ka mid a jirkayga ayaa gubtay ishana dhaawac culus ayaa markaa iga soo gaadhay aniga oo weli daanyeer ah markaas ayaan wada yaqiinsanay inaanu halaagsamayno oo aanu dhimanayno balse gabadhii saaxiradda ahayd ayaa degdegtay oo barkad meesha ku taallay oo biyo ka buuxaan inta ay wax ku akhriday inta ay jinnigii qabatay barkidii ku tuurtay kadibna ka daba gashay wuxuu dagaalkii socdaba saaxiradii ayaa biyihii ka soo baxday iyada oo gacanta ku haysa madaxii cifriidka oo isu beddelay burbur markaas ayaan takfiirsanay oo aanu faraxnay laakiin nasiib xumo saaxiradiina iyada oo dhaawac daran qabta ayay soo baxday kolkaas ay intay wax igu akhriday ayaan qaabkaygii hore ku soo noqday marka laga reebo ishii dhaawac iga soo gaadhay oo caadi iyadu ku noqon weyday muddo yar kadibna saaxiradii dhaawacii ayay u dhimatay kolkaas ayaa dadkii magaalada joogay tacsi weyn u dhigeen iyagoo u baroordiiqayay dhimashadii ku timi boqorkoodii ay aadka u jeclaayeen iyo saaxiradiisii subaxii dambe ayaa waxaa ii yimi maamulkii ugu sarreeyay boqortooyadan waxa ay igu yidhaaheen niyahu annagu muddo dheer ayaanu halkan deganayn wax musiibo ahna nooma iman jirin ilaa aad adigu noo timi oo musiibadana nagu dhacday marka ma rabno in musiibo kale nagu sii dhacdo iskaga tag meeshan sidii ayaan magaalada uga soo baxay anoo aad u murugaysan kana xun wixii gabadhii ku dhacay iyo sida naxariis darrada ahayd ee loo dilay iyo boqorkii dhibku inay dartii u soo gaadhay
intaan madaxaas ka soo xiray ayaan soo safray ilaa aan ka imi magaalada Baqdaad. waxaan halkan kula kulmay labadaa nin. meeshii ayaanan iska soo raacnay ilaa aanu gurigan ka nimi. kolkaas ayuu khaliifkii Haaruun Rashiid ku yidhi wasiirkiisii Jacfar ahaa, wallaahi sheekadan mid la mid ah weligay maanan maqlin. markaas ay gabdhihii saboolkii labaad ku yidhaaheen, waad fasaxan tahay ee orodoo iska bax. kolkaas ayuu yidhi, maya wallaahi baanan baxaynin ilaa aan ka maqlo sheekada labadan nin. kadibna waxaa soo kacay saboolkii saddexaad oo sheekadiisii bilaabay. wuxuu sheekadiisii ku bilaabay, anigu waxaan ahaa boqor, waxaana ka talin jiray xeeb dhow oo jasiirado badani ku yaalaan. waxaan aad u jeclaa safarka. maalinkii dambe ayaa safar 10 markab ka kooban aan diyaariyey. markaan muddo jidka ku sii jirnay ayaa waxaana qabsatay duufaan aad u culus. kolkaas ayaanu meel xeeb ah degnay intay duufaantu ka degayso. annagoo halkaana joognay muddo 2 maalmood ah. markay duufaantii degtay ayaanu soo baxnay. muddo markaanu jidka ku soo jirnay ayaa waxaanu dareennay inaanu jidkii ka lunnay. kolkaas ayuu kabtankii markabka waday ku yidhi ninkii naaduurka ahaa, maxaad aragtaa? naaduurkii waxa uu yidhi, wallaahi wax iga yaabiya ayaan arkaa, waana wax madow oo wareegsan, marba marka ka dambaysana waynugu soo dhowaanayaa. kolkaas ayuu kabtankii yidhi, innaa lilaahi wa innaa ilayhi raajicuun, waynu halaagsanay. waxaan weydiiyey, oo maxaa dhacay oo sidaa u leedahay? wuxuu igu yidhi, boqorkaygiiyow, waxaan madow ee inaga horreeya waa buur weyn oo birlab ka samaysan. waxaanan ku maqlay sheekooyin badan oo ay ii sheegeen kabtanadii hore ee aan la soo shaqeeyey. buurtaas markab kasta oo agteeda mara way jiidataa, waxaana hoosteeda ku yaalla bohol aad u weyn oo biyaheedu wareegaan. markabku marka uu bohoshaas ku dhaco ayuu burburaa, waxaana meesha ku burburay maraakiib hore oo badan. waxaase jirta buurta horteeda waxaa ku yaalla buur yar oo uu saaran yahay faras laga sameeyey maar, uuna faraskaas sii saaran yahay nin isagana maar laga sameeyey. sida keliya ee lagu badbaadi karaana waxa weeye in faraskaas iyo ninka saaranba meesha laga tuuro, haddii kale inteenna badan waynu halaagsami doonaa. iminkana aad ayaynu ugu dhownahay buurtii, aynu iscafino. kolkaas ayaanu wada naxnay oo qofba qofka kala cafiyey, waxaanoo yaqiinsanay inaanu halaagsamayno. kadibna markabkii ayaa qallimay. inta badan dadkii ila socdayna halkii ayay ku dhinteen. waxaana ka badbaaday dad yar oo farakuturis ah, meelna aanan isku sheegin oo aan anigu ka mid ahaa. anigu waxa aan ku badbaaday alwaax yar oo ka mid ahaa burburkii markabka ayaan ku dhegay oo siduu ii soo waday igeeyey buur yar oo meesha ku taalay. markaas ayaan buurtii fuulay. sida aan u fuulayay ayaan tegey qaybta ugu sarraysa, mise qol ayaaba meesha ka dhisan. qolkii ayaan galay, waxaana yaalay agab guri oo dhammaystiran. markaas ayaan 2 ragcadood tukaday anigoo aad iyo aad u farxay. halkii ayaan seexday. aniga oo meeshii hurdo ayaa waxa aan maqlay dhawaaq ii yeedhaya oo igu leh, meesha aad hurdo hoosteeda qod, waxaa ku jira fallaadh iyo gamuun, ee qaado ee ku rid faraska iyo ninka kor saaran ee buurta hor qotoma, si musiibadan dadka aad uga badbaadiso. markaas ayaan soo hambaabiray aan meeshii qoday. kadibna waxaan ka soo saaray fallaadhii, waxaan ku tuuray faraska iyo ninkii saarnaa. markay ku dhacday ayay baddii hal mar kacday ilaa ay buurtii leekaatay. anigana waxa ay qaaday hirarkii weynaa iyo muujadihii ilaa ay ugu tuureen meel jasiirad ah oo aad u yar, cidlana ah. kolkaas ayaan isku odhi, markastoo aad musiibo ka badbaado mid kale ayaad madaxa la sii gelaysaa. anigoo meeshii jooga ayaa waxa aan arkay markab jasiiraddii ku soo socda, waxaana ka soo degay 10 nin oo addooma ahaa. waxayna yimaadeen jasiiraddii iyagoo dhulkii bannaanaa qoday. kadibna waxa ay ku noqdeen markabkii. markaas ayay ka soo qaadeen raashin fara badan oo cunno iyo cabitaan isugu jira, iyagoona godkii ku guray. kadib afka ayay ka xidheen markabkii ayaanay dib ugu noqdeen. aniga oo yaaban ayaan soo baxay, meeshii ayaanan imi. kadibna waan qoday, waxaana ii soo baxay albaab. markaas ayaan albaabkii galay, waxaan ku arkay gudihii beero badan oo meesha ku yaalla. haddana waxaan arkay faras meesha daaqaaya. faraskii ayaan fuulay. cabbaar markii aan saarnaa ayuu inta sayntiisii igu garaacay, iska kayriday. halkaas ayaanan ishaydii ku waayay. markaas ayaan godkii ka soo baxay. waxaan meeshii joogaba markii dambe waxaan la kulmay dad socoto ah oo meesha maraayay. waxayna ii keeneen magaalada Baqdaad maadaamay ahayd meeshay ku soo wajahnaayeen. markii aan imi magaalada Baqdaad oo aan cidna ka aqoonin ayaa waxa aan la kulmay 2 nin. waan salaamay. halkii ayaanan iska soo raacnay ilaa aanu nimi gabdhahan gurigooda. sheekadeeduna aniga waa taas. kolkaas ayay gabdhihii yidhaaheen, waad fasaxan tahay, waanaad bixi kartaa. sidii kuwii hore ayuu isna yidhi, bixi maayo ilaa aanu dadkan kale sheekadooda maqlo. kolkaas ayay gabdhihii khaliifkii iyo 2 nin ee la socday ku yidhaaheen, idinkana maxay tahay sheekadiinu? jacfar ayaa yidhi, anagu niman socoto ah ayaanu nahay, wax kalena ma jiraan. gabdhihii ayaa ku yidhi, waad fasaxan tihiin, waadna bixi kartaan. markaas ayay dhammaantood soo wada baxeen. cabbaar markay socdeen ayuu khaliifkii ku yidhi sabooladii, xaggeed hadda aadaysaan? waxay ku jawaabeen, ma garanayno. markaas ayuu khaliifkii jacfar ku yidhi, orod oo kaxee, meelay seexdaanna sii, berri subaxna ii keen si aan arrintooda u xalliyo. sidii ayuuna jacfar ku waday. habeenkaas oo dhan khaliifkii caadilka ahaa ee Haaruun Rashiid wuu fakarayay. markii subaxii la gaaray ayuu u wacay jacfar, wuxuuna ku yidhi, ii keen 3 sabool iyo 3 gabdhood iyo 2 eyba. markaas ayuu jacfar soo baxay oo dhammaantood soo wada kaxeeyey, khaliifkiina hor keenay. markii ay gabdhihii arkeen ogaadeenna in ninkan yahay khaliifkii mu'miniinta ee Haaruun Rashiid, aad ayay u yaabeen.
kolkaas ayuu jacfar ku yidhi khaliifku waxa uu doonayaa inuu ogaado wax kasta oo gurigaas ka socda, xaalkiina iyo xaalka labadii ayba. annaga xalay maadaama aanu shuruud ku joogno gurigiina idinkumaanu xadgudbin, laakiin saaka waxaad hortaagan tihiin khaliifkii shanaad ee dowladda cabbaasiyiinta ahna amiirkii mu'miniinta, waxaan run ahayna kuma badbaadaysaan. kolkay gabdhihii hadalkaa maqleen ayay gabadhii koowaad sheekada ku bilowday. waxaad ogaataa amiirkii mu'miniintow inay soo martay qiso cajiib ah oo haddii iyadana lagu qoro xitaa irbad cibro u noqonaysa kuwa cibro qaata. waxaad ogaataa in gabdhahani walaaladay yihiin, waxaanu nahay isku aabbo. waxaanu aabbahay lahaa hanti badan, kadibna wuu geeriyooday, markaas ayaanu dhaxalkii si siban u qaybsannay. kadib labadii gabdhood ee walaalahayga ahaa way guursadeen iyagoo nimankooda safar la galay. muddo markay maqnaayeen ayay ii yimaadeen iyagoo aad u murugaysan, aadna u walwalsan. waan waraystay, waxa ayna ii sheegeen in nimankoodii ay khiyaameeyeen, wixii xoole ay haysteenna ay ka furteen. kolkaas ayaan aad ugu murugooday, waanan soo dhoweeyey, waanan sharfay. waxaanan u sheegay in nimanka wakhtigan jira aan la isku halayn karin, nin fiicanna uu dhif iyo naadirba yahay. kadib markii aanu muddo isla joognay ayaan go'aansaday inaan safar ganacsi ku aado magaalada Basra. waxaan diyaariyey markab weyn, anigoo lacagtaydiina u kala qaybiyey 2 qaybood, mid aan ku safray iyo mid aan keyd ka dhigtay. kadib waxaan u wacay gabdhihii walaaladeeda ahaa, waxaanan ku idhi haddaad rabtaan waad i raaci kartaan, haddaad rabtaanna waad iska joogi kartaan, ikhtiyaarka idinkaa leh. kolkaas ayay igu yidhaaheen marnaba kaama hadhayna ee waan ku raacaynaa. halkii ayaanu ka soo safrnay. markaanu muddo maalmo ah jidka ku soo jirnay ayaa waxaa ii yimid naaqoodihii markabka waday, wuxuuna ii sheegay inay dabaylo darin waddadii naga wareejiyeen oo aanu baddii aanu naqaanay ka lunnay, islamarkaana bad aan la aqoonin aanu dhex galnay. kadib waxay dabayshuna waddaba waxayna keentay meel jasiirad ah oo aad u qurux badan, aadna cajiib u ah. waanu soo degnay, waxaananu soo galnay jasiiraddii oo dadkii ku noolaa ay wada nasakhmeen, qof dhaqaaqayaana uusan jirin. aad ayaan ula yaabay, waxaananu ku kala firxanay jasiiraddii si aanu arrintan yaabka leh u aragno. anigu cabbaar markii aan meesha ku wareegayay ayaan markii dambe arkay qasrigii looga talinayay jasiiradda oo dahab ka wada samaysan. waan soo baxay, albaabkii ayaana furay, mise waa cajabka cajabkiisa, waxaan arkay qasri quruxdiisa aad la yaabayso. darbiyadiisa waxaa lagu xardhay dahab iyo qalin, gudihiisa waxa aad ka helaysaa nooc kasta oo dhagaxaanta ifaya ah sida luulka, dheemanka, yaaquudka iyo wixii la mida. waxaa meesha ku yaalay hool aad u weyn, waxaana dhex yaalla kursigii boqorka oo laga sameeyey luul iyo dheeman, xariirna lagu xardhay. waxaana ku fadhiyey nin watay taaj aad u qurux badan, ninkaas oo aan ku qiyaasay inuu yahay boqorkii qasriga. agtiisana waxaa fadhiyey gabadh aad u labisan, iyadana uu u xidhan yahay taaj qurux badan, inay boqorro tahayna aad ka dareemayso. hareerahoodana waxaa ku wareegsanaa ciidan ku hubaysan seefad dahab ka samaysan. aniga oo qasrigii ku wareegaysanaya ayaan markii dambe arkay iftiin meel ka soo baxaya. dhankii iftiinka ayaan aaday, wuxuuna ahaa shamac shidan. waxaan is idhi shamacan qofkii shiday meel fog ma jiro, waxaanan gudagalay raadintiisii. balse intaan raadinayay ayaan qasrigii ku dhex lumay maadaama uu aad u weynaa. habeenkii markii la gaadhay, albaabkiina aanan weli helin, ayaan meel iska fadhiistay. waxaan isku dayay inaan seexdo, balse hurdo way iigu soo dhici weyday. kadibna anoo meeshii sidii u fadhiyay ayaan maqlay cod qof qur-aan akhrinaya. waan la tacajabay qofka xilligan qur-aanka akhrinaya cidda uu yahay, waxaanan soo raacay codkii macaanaa. kadib waxa aan soo galay qolkii uu codku ka soo baxayay, mise waxaa dhex fadhiya wiil aad u qurux badan, wejigiisuna u ifaayo sidii dayaxa. markaan arkay ayaan salaamay, salaantii ayaanu iga qaaday. kadibna waxaan ku idhi ilaahay baan kugu dhaariyay, waxa aad ii sheegtaa siday wax u jiraan iyo dadka magaaladan degan waxa ku dhacay ee dhagaxaanta ka dhigay. kolkaas ayuu igu yidhi adigu waxaad ii sheegtaa sidaad halkan ku timi. waxaan uga sheekeeyey qisadaydii iyo siday wax u dhaceen. kadibna waxaan ku idhi waxaad ii sheegtaa adigu qisadaada iyo qisada magaaladan. wuxuu igu yidhi magaaladan aad u jeedid waxaa xukumi jiray aabbahay, waxayna ahaayeen dad majuus ah oo dabka caabuda. kadib markii aan anigu dhashay ayuu aabbahay ii geeyey islaan waayeel ah oo dadka wax barta si ay wax ii barto. islaantu waxay ahayd gabadh muslimad ah, laakiin way qarsan jirtay oo aabbahay ma uusan ogeyn. markii la ii geeyey ayay bartay diinta ilaahay, qur-aanka iyo sunnada nabigeenna sala allahu calayhi wasalam. waxayna igu tidhi aabbaha ka qari, sidii ayaanan uga qarin jiray. muddo kadib islaantii way iska geeriyootay. kadib waxaa dhacday maalin maalmaha ka mid ah, iyada oo la wada joogo ayay magaaladii hal mar gariirtay. kadib waxaa yeedhay cod aad u weyn oo dhawaq ah, kaas oo dadka uga digayay caabudista asnaamta iyo dabkan ay caabudayaan. dadkii magaalada joogay aad iyo aad ayay u naxeen, waxa ayna u yimaadeen aabbahay, balse waxa uu ku yidhi diinteenna cod yar oo baxay ha uga tegina ee ku dheganaada. iyaguna hadalkiisii ayay qaateen. codkii mar labaad iyo mar saddexaad uu soo noqday oo waa la maqlay, balse cidina dhaw ma jaaqsiinin. muddo markii ay ka soo wareegtay, dadkii magaalada ku noolaana fasahaadkoodu uu batay, ayaa maalinkii dambe cadaabkii ilaahay u yimi, waxayna dhammaantood isku beddeleen dhagaxaanta aad arkaysid. aniga oo keliya ayaana ka badbaaday. wixii maalintaas ka dambeeyey waxaan soon iyo salaad iyo qur-aan akhris ahayn maan wadin.
waxaana halkan ku dareemay cidlo daran, qof aan weheshadana waan waayay. sidaa darteed qur'aanka iyo salaada ayaan wehel ka dhigtay. waxaan ku idhi, ma ii raacaysaa magaalada baqdaad si fuqahada iyo culimmada halkaas joogtaa aan arrintaada ugu soo bandhigo, aniguna aan xaas kugu noqdo, iyadoo weliba aan madax u ahay tolkay, islamarkaasna ay hoos yimaadaan shaqaale badan iyo addoomo fara badani. waxaana xeebta jasiiradda iminka iigu diyaarsan markab ganacsi oon anigu wato, halkanna qadarka ilaahayun ayaa noogu soo tuuray. sidaan ugu qancinayay inuu isoo raaco ayuu markii dambe iga oggolaaday inuu isoo raaco. markay sheekadu halkaa maraysay ayay Shahrazaad dareentay in subaxii la gaadhay, markaas ayay aamustay iyada oo joojisay hadalkii u bannaanaa. halkaas ayaynu maanta ku soo koobaynaa xalqadeennan. inta xalqaddan xalqadda xigta aynu ku kulmayno waxaan idinkaga tegayaa nabadeed.